إنك كابسان والاستعلان سنتاسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتير مقعي وسمسم صالح عبد العزيز waxaa ka mid ah ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe في waxaan halkan idinkaga soo gudbinaya khudbad ku saabsan taariikhda Soomaaliya. Soomaaliya waa wadan ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika, khaasatan geeska Afrika. Dadkeeda waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba boqol inay yihiin dad muslimiin ah. Magaalada koowaad ee Soomaaliya waa Muqdisho. Magaalada labaad ee Soomaaliya waa Hargeysa. Magaalada saddexaad ee Soomaaliya waa Kismaayo. Soomaaliya waa wadan cimilo wanaagsan leh, waxayna ka kooban tahay 18 gobol oo kala ah gobolka Awdal, gobolka Waqooyi Galbeed, gobolka Togdheer, gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Bari, gobolka Nugaal, gobolka Mudug, gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka Banaadir, gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Jubbada Dhexe, gobolka Jubbada Hoose, gobolka Baay, gobolka Boqol iyo gobolka Gado. Soomaaliya waxay xuduud la wadaagtaa Kenya, Jabuuti, Itoobiya iyo Badweynta Hindiya. Soomaaliya waxay leedahay laba webi oo kala ah Jubba iyo Shabeelle. Webiga Shabeelle waxa uu kasoo bilaabaa buuraha Itoobiya, waxa uuna dhererkiisu gaaraa 1500 kiiloomitir. Waxa uuna soo maraa magaalooyin fara badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, waxaana ka mid ah Beledweyne, Buulaburte, Jowhar, Balcad, Mahadaay, Afgooye, Sablaale, Qoryooley, Bariire, Oodhagi, Mubaarak iyo Jilyaale. Webiga Jubba waa webiga ugu weyn ee dalka Soomaaliya oo webigu ugu ballaaran. Waxa uuna kasoo bilaabaa wadanka Itoobiya, waxa uuna soo maraa magaalooyin fara badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, waxaana ka mid ah Doolow, Luuq, Buurdhuwe, Baardheere, Bu'aale, Jilib, Mareerey, Kabsuuma iyo Jamaame. Webiga Jubba waxa uu ku dhamaadaa uuna badda kaga soo darsoomaa meel la yiraahdo Gabon oo Kismaayo u jirto 25 kiiloomitir. Dhulka Soomaaliya waxa uu ahaa mid ay degan yihiin ka badan 10,000 oo sano kahor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waqtigaas oo inta badan dadku duurjoog ahaayeen dhaqda xoolaha iyo beeraha. Sidaas ay tahay waxaa jirta ilbaxnimo si tartiib ah isku soo daraysa oo waxaa la sheegay dadka inta badan ay ahaayeen xidhiidh ganacsi oo dhirta ah. Soomaaliya waxay xorriyadda qaadatay sanadkii 1960. Dhankii waqooyiga waxay xorriyadda ka qaadatay dowladda Ingiriiska, waxayna qaadatay 26 Juun 1960, waana maalintii ugu horeysay calan Soomaaliya la suro. Dhanka koonfurna waxay xorriyaddeedii qaadatay 1 bishii Luulyo 1960. Wadankan waxaa madaxweyne ka noqday Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde, waxa uuna hayay ilaa 10 Juun 1967. Waxaana doorasho madaxtinimo kala wareegay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Madaxweyne Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde Allah u naxariiste waxa uu dhashay sanadkii 1908, waxa uuna ku dhashay magaalada Beledweyne. Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ahaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliya, waxa uuna xilka qabtay sanadkii 1967 ilaa 1969, waana muddo 2 sano ah. Waxa uuna cilmiga siyaasadda ka soo bartay jaamacad ku taala caasimadda Talyaaniga ee Roma. Jaamacaddaas oo lagu magacaabo Sapienza University of Roma. Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaa lagu dilay toogasho oo waxaa